xisbiga haya talada Somaliland ee kulmiye ayaa xilkii gudoomiyaha golaha dhexe iyo xubinimadiiba ka qaaday jaamac Ismaaciil Ciga Shabeelle waxaana sidaas lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska xisbiga kulmiye oo uu ku saxeexan yahay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga Axmed Cabdi Xuseen war-saxaafadeedkaasi oo nuqul ka mid ah soo gaaray xafiiska warqabadka Kelson TV ayaa waxa uu dhignaa sida gudida fulinta ee xisbiga kulmiye markii ay diristay habdhaqankaaga khilaafsan siyaasadda iyo shuruucda xisbiga kulmiye markii ay u cadaatay in si toos oo badheer u joogtay khilaafka iyo ka hor imaatinka siyaasadda xisbiga iyo xukuumadda kulmiye markii ay si badheer u sameysay abaabul iyo kicin aad isku dayday inaad ka sameyso suuqa iyo xarunta xisbiga labadaba markaad meel ka dhac joogta ku sameysay maamuuska xilka aad xisbiga u hayso markii xilka aad hayso aad u isticmaashay si khaldan ugana faa'iideysatay aragtidaada shakhsiga ah ayaa lagu yiri gudida fulinta ee xisbiga kulmiye markii ay ogaatay in marar kala duwan si toos ah ay kaagala hadleen hoggaanka xisbigu arrimaha aad ku kacayso hase ahaatee aad ka joogsan weyday iyadoo raacayso qodobka 56 ee xeerka xisbiga kulmiye farqadiisa 2, 3 iyo 4 waxay go'aamiyeen in laga bilaabo taariikhda maanta laga qaaday xilkii iyo xubinnimadii golaha dhexe xisbiga kulmiye waxaana xilka golaha dhexe xisbiga si ku meel gaar u sii haynayay baa lagu yiri gudoomiye ku-xigeenka golaha dhexe xisbiga kulmiye xilka qaadista jaamac Ismaaciil Ciga Shabeelle ayaa ku soo beegmisay iyadoo maalimihii ugu dambeeyay uu jiray muran xoogan iyo khilaaf ka dhaxeeya xisbiga kulmiye iyo mas'uul jaamac Ismaaciil Ciga Shabeelle kaasi oo sheegay in xisbi ahaan la xisaabtamayaan madaxweynaha talada dalka haya Muuse Biixi Cabdi سعيد فارح أكتر كلسن تي في هرقيسة